waxaa sharaf weyn inoo ah guud ahaan maamulka jaamacadda in uu si diiran u soo dhaweeyo ardayda sharafta badan ee doortay jaamacadda Green Hope. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan, qalbi furan. jaamacadda Green Hope waxay leedahay saameyn muuqata oo ku aadan horumarinta aqoonta, xirfadaha ardayda. waxay bixisaa waxbarasho dhammaystiran, fursado waxbarasho oo dhammaystiran. waxay leedahay macallimiin khibrad leh. waxay kaloo leedahay kambasyo waxbarasho oo dhiirigelinaya himilooyinka iyo hanka waxbarasho ay leeyihiin dhalinta Soomaaliyeed. jaamacadda waxaa ka go'an mar kasta inay siiso aqoon, xirfad iyo anshax ardayda dhigata. waxbarashada marka laga hadlayo waxay u baahan tahay wax la yiraahdo oo very important ah. marka hore inay qof ka go'an tahay waxa la yiraahdo inay ka go'an tahay inaad wax barato. marka hore inaad taad meel fariisato, fikirto, isla hadasho adiga, aad ogaato cidda aad tahay. ma ka go'an tahay inaad wax barato? ma awoodaa inaad wax barato? ma awoodaa ma ahan finance-ga ma ka hadlayo, xagga lacagta iyo ma ka hadlayo, laakiin ma heli karaysaa waqti iyo caqli suuban oo aad wax ku barato? awooddeeda ma leedahay? dan waxaa imaanayso haddii ay timaado way fududaanaysaa. laakiin haddii aad isaga socotay wax unaa la bartaa iska baro, you know that waqtiga wuu socdaa. waqti hadduu dhammaadana beri waa ka sheekeynaya jaamacad hebelaan tegey, digriyaan qaatay, intaasoo imtixaanaan ku dhacay, saasaan eed. laakiin haddii ay kaa go'an tahay xaqiiqatan wax waa baranaysaa, waa la hubaa. nin la yidhaahdo Sadhguru waa nin I think inuu yahay dadka waa Hindi waay. ninkaas wuxuu aaminsan yahay, wuxuu ka hadlaa wax la yidhaahdo dadka psychologist wuxuu ka hadlaa, wuxuu la taliyaa dadka iyo qaabka u noolaan lahayn waxyaabahaasoo ka hadlaa. wuxuu ka hadlaa wax la yidhahdo timeka iyo energy. maxaa la yidhahdaa nolosha marka la qiimeynayo ama la divine gareynayo, mostly waxaa lagu divine gareeyaa individual level. nolosha dadka kale ee leeyihin waxba kaaga ma jiro adiga. so nolosha marka la qeexayo waxaa la yidhahdaa waa time and energy combined together. waa waqti iyo tamar la isu keenay. tusaale ahaan waqtiga saaka markaa imaanaynay waxaa laga yaabaa saacado badanaa hadda gudbajaa. so you cannot hold that time from rolling. waqtiga wuu socdaa, dib uma celin karaysid. intii aad fadhisayna waxaa isticmaalaysay tamaraa isticmaalaysay. mar waa ku fikiraysay, mar dadkaa ku fiirinaysay, mar waxbaa ku xisaabaysay, mar waxbaa ku xasuusinay, soo ma? so the time and energy combined together haddaad ka faa'iidaysato waxaa noqonaysaa qof macquula oo noloshiisii ka faa'iidaya noqonaysaa. ma arkaysaa? waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu xaafadda joogo, sportsman yahay, arrimo kale uu ku mashquulsan yahay, laakiin adiga aad intaad soo baxdo aad wax ku barato tamartaadii, timeka aad ka faa'iidaysatay. so tamarta waa la horumarin karaa, shaqooyin aad ku qabsatay. so maalinta haddaad isticmaasho 3 tamar, bishii waxay noqonaysaa 90 energy aad isticmaasho. timekaaga waad ka faa'iidaysay. saaxiibka waxaa laga yaabaa inuu 1 tamar isticmaalay, balooni uu kaga sheekeynayo 1 tamar. so markaa muddo wada noolaataan waxaa laga yaabaa haddii 50 sano uu gaaro 50 miserable maarta ay noqonaysaa oo nolol. adigana waxaa laga yaabaa dhowr boqoloo sano inaad jirtay. waxaan u jeedaa tamartii aad ka faa'iidaysay. marka waxaan rabaa jaamacadda Green Hope waxay diyaar u tahay inay aqoon saxa oo hufan idiin siiso. please timekaaga ka faa'iidayso, energy-gana ka faa'iidayso, ha iska luminin. marka ugu dambeyn waxaan u rajeynayaa dhalinta cusub ee nagu soo biirtay oo noogu timid xagga waxbarashada inuu safarkooda waxbarasho noqdo mid miro dhal ah. thank you. anigu magacaygu waxaa leeyahay Dr. Maxamed Kismaayo, waxaana Faculty Dean of Health Science. mas-uuliyiintii maamulka jaamacaddana waa ka mid ahay. waxaad access u leedahay mas-uuliyadda jaamacadda haddii aad problem aragto oo lagula xalinayo. ha qarsanin. haddaad dhibaato aragto noo imaa, waa kula xalinaynaa. wax kasta oon experience u leenahayna diyaaraan u nahay inaan ku siino. waa ku hagaynaa insha allah hadduu Ilaah yidhaahdo. sida aad jeceshaan kula shaqeynaa. thank you for listening me.